jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Cumaan ayaa kaalinta koowaad ka galay bandhig dhaqameed loo qabtay jaaliyadaha ku nool dalkaasi Cumaan. Bandhig dhaqameedkaasi ayaa lagu tartamayay oo dal walba uu soo bandhigayay cuntooyinka uu ku faano iyo dhaqankiisa. munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Salalah ee wadanka Cumaan, waxaana bandhigaasi ku saabsanaa in dal walba uu soo bandhigo cuntooyinka uu ku faano iyo waxyaabaha uu dhaqanka u leeyahay oo ciyaaraha ay ka mid yihiin. munaasabadaasi waxaa agaasimay mid ka mid ah ururada ugu waaweyn dalkaasi oo lagu magacaabo Naadi Nasr, waxaana kamid ah ururadaasi xubinka ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Cumaan, waxaana bandhigaasi lagu cusumay inay xariga ka jaraan wasiiro ka tirsan dalkaasi Cumaan, saraakiil dhinaca ciidamada ah iyo shuyuukh caan ka ah dalkaasi Cumaan. jaaliyada Soomaaliya ee ku dhaqan dalka Cumaan ayaa bandhigaasi si weyn uga dhex muuqanayay, waxayna soo bandhigeen cuntooyin Soomaalidu hidaha iyo dhaqanka u leedahay sida oodkaca, caanaha geela, muufada, canjeelada, suugada, shushumowga, sambuuska, bijiyaha, hilibka geela iyo waxyaalo kale oo badan. sidoo kale waxa ay soo bandhigeen alaabaha Soomaalida hidaha iyo dhaqanka ay u leedahay, iyadoo sidoo kalena soo bandhigay ciyaaro dhaqan iyo majaajilooyin iyo sidoo kale weliba halxidhaalayaal iyo suugaan. Soomaalida ayaa halkaasi waxa ay ku gashay kaalinta koowaad ee jaaliyadaha ku nool dalkaasi Cumaan markii ay tartanka dhaqanka ku guuleysteen.